السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت ماموس كي كرامة مدن أدبانو إني سلاني وقت وناكسن ينور القروح بدن نويني رجينينا كسو دوادا كنال كينا عافيماتك إدريالك عافيماتك ونماتك قهالينو أما إنو كسو قادن دونو هدي لهاي كدقو qaabka ugu fudud ee aad u joojin karto siigada aad uga hortagi karto iyo dhibaatooyinka runtii aadka u ballaaran ee mashaakilaadka ee ciribtirka ee ay leedahay oo runtii xusuusteeda mudan. haddii dhibtani ay noqotay dhib aad la daristay in badan ku daba socotay noloshaada baabi'isay mustaqbalkaaga madow gelisay kugu abuurtay xanuunooyin iyo dhibaato hadhi weyde, qodobka koowaad ee aad iskaga dayin kartaa ma aha inaad dhibaatooyinka ka riirigayd garayso oo aad ka qoomamayso. ma aha inta badan mustaqbalkaaga inaad xoogga saarto dhibaatooyinkaas oo dhan wax kalaa ka daran. haddaad tahay qof muslina oo ku abtirsada diinteenna macaane islaamka, fursadda ugu weyn ee aad ku joojin kartaa waa inay ahaataa cabsi alla, inaad tahay qof ma samaynayo oo ah maadharin ugxan iyo ubad iyo tafiir maalin kasta dilaya oo gacantiisa ku dilaya. haddii aad cabsi alla ku gasho oo waxaan dar ilaahay uga cabsato oo aad aragto waxaan inaad aakhiro ku halaagmayso, cadaabaad ku mudanayso, adduunyadana dhibaatooyinkaad markhaatiga ka tahay ee naftaadu ay ka markhaati kacaysa ku soo gaadhsiiyey, arrintaas oo dar ilaahay aad uga tanaasusho, ilaahayna aad dib ugu laabato, wixii aad samaysayna aad uga qoomamayso. arrintaas waa qodobka qura ee last justice forever ee lagu joojiyo xanuunka siigada iyo balwadaas ay ku dhacaan bulshada qaar ka mid ah shaydaanku ka qayb qaato. qodobka labaad, inaad meesha soo dhigato arrinta caafimaad ee ku gaadhsiisay, muuqaalka araggaaga ee rifmay, timaha kaa daatay, awooddaada baabaaday, kuwaas waa kuwa hadda aad la daristay. dhibaatooyinka kale ee mustaqbalka oo runtii iyaduna mashaakilaada culus leh, in markaa tafiirtaada iyo tarankaaga laga yaabo inuu madow galo, in markaas tafiirta ama se ugxanta ama manidu ay ahaato mid daciif oo hadhowto uur samaysanka ay kugu adkaato ama dhib ay dhinacaasu kaa qabsado, inaad ahaato qof markaa hadhowto haddii uu guursaday ama uu guursado farxad iyo nolol iyo raganimo ama qofnimadii markaa loogu talagalay meesha ay ka baxdo oo markaa goobtaas iyo markuu eeryadaa tago ahaado qof markaa aan manaafacaad lahayn. qodobkaana inaad xasuusnaato waa mid muhiima. qaabkaad ku joojinaysaa waa inaad la saaxiibto dad wanaagsan, maskaxdaada inaad wax positive ku mashquuliso sida waxbarasho, exercise iyo raacashada iyo la socoshada duruusta diinta islaamka. saddexdaas qodob haddii aad xoogga saarto, ta koowaad inaad dar ilaahay uga hadho, ta labaad caafimaadkaaga inaad u baqato, caafimaadkaaga dhowey aad la nooshay iyo ka mustaqbalka labadaba, ta saddexaad inaad markaa dadka iyo bay-adda intaba aad bedesho. saddexdaa qodob haddii aad ku sifowdo waxaad noqon doontaa qof carqaladan ka gudba, suntan iyo boogtan lagu walaaqay ee gacantaada iyo naftaada shaydaanku isku rifay aad ka baxdo. ugu yaraan 11 xanuun baa laga qaadaa marka aynu eegayno xanuunka aadka u foosha xun ee la yidhaahdo masturbationka ama siigada Soomaali ahaan aynu naqaan. haddii kiliba kale aynu ku soo qaadan doonaa oo wax kaliba qura lagu ka fargaraynaya maaha. fadlan saddexdaa istibraac oo ku jooji oo kaga tanaasul dhibtaas aakhiro iyo adduun labadaba halaaga ku horseedaysa. intaasaynu kaga tagaynaa la sii wadaaga bulshada kale aynu jecelnay. wixii su'aalo qabtaan comment. mar labaad baanu in leenahay.